السلام عليكم صحابتي وحلا صحابتي كسو بيرتقي مانتين ميل دبينا وقضوبة إن شاء الله بإذن الله كريم إيقار النغادة الحوغة عنده اللحلحمي عارفت إن شاء الله بإذن الله كريم قولي ومن ما إذن الله هاي هذا يقول عصب سايس كريم يسار دي قلنا إذا لسكريم إيسارت إن شاء الله يا رب قين لأنتي نبار وضطي قصوب بير يدادك قولي وقبني بلأنتي نبار وما تنتين قولي صاعد الله هاي قلبيهنا لك إن شاء الله بإذن الله كريم qofkii wax yar kusii wax badan xataa uu kusii yaala insha Allah ku mahadsantihiin dadka iskarkii saaro hore iyo jooy kuwa kala insha Allah igu cusub waxaan maxaa aan fiirino Axmed Kaari qorqor insha Allah Axmed Kaari reeto fooq oo haajire ama xaafadda faqliyo tukaan weyn kula haajire suuqeeda insha Allah aan aragno insha Allah biidnillaahi kariim walaalkan waxa uu hadlo الله يكون يسترر قلم لقعنا هاي سقبصة أنا قبيلة يقولون مرة مجعلي أنا محي هاي جقم حاجة نصيب ولا الكي وإن شاء الله ويل سومالية بدنا نقرأ أنا إن شاء الله أقول لسه إن ذي دمتي وحان لحري يا شنقكم هذا فنيا وحان لحري من السياسيين وحان لحري من بشرة ذلك وحجرك شهك استوحان ومرني إن بالقول له عد أي أسود شوك سدان oo ka aqbalaan waxaan qori caradi ahayn ka baxa magaalada alqabsateen oo ku soo duushay ka joojiya hubka iyo xoogga iyo duulaanka malihidin xaq gaar ah shalay sida la xusay nimankaa wadaadada ah waxaysan galmudug xaq ugu lahayn oo aysan reer galmudug xaq ugu lahayn baashaa la siiyey bal un ha lagu qanciyo oo mar un ha qaateen xal ummaddaa ka hareen markay qaateen oo kuraas usoo qoreen deero iyo dad kuraasta soo dooran lahaa oo iyagu usoo sameeyeen oo laga aqbalay oo dad reer galmudug lagu qanciyey inaysan dadka ku matalaya baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda aysan soo dooran bay yidhahdeen sanarna maaha waa ii dhimanta warwaayaal ma dhimana malihidin waxaad qaadateen dadka kama duwanidin beel magac kale lahoo aan beelahaas galmudug ahayno ma jirto oo 12aad waa la waayay haddaa la yidhi bismillah inta la raadiyey cadow galmudug oo markii la arkay in haddii gaarigu fadhi jiray u dhaqaaqayo oo gaari dhaqaaqay ayaa cadowgii galmudug meeluu joogaba noxnoxsaday yaan isticmaalnaa raadadii aawo noogu yeera taa qoryaha lasoo gurta wiilalaa lasoo qalda wiilasheenii duulahana lasoo qaada warwalaalayaalow nabad iyo si salmiya ku sheegta waxaad qabtaan dadkana ka daaya dhibka aada uga xumaha runtii inkastoo dadka reer galmudug dal iyo dabad ay dowladnimadooda iyo jiritaankooda ilaashadeen ay garab istaageen gaar ahaana reer gurceel ay runtii dowladnimada garab istaageen si buuxdana gacan u siiyeen dhibaatadii ku dhacdana ay ku bedesheen oo ugu sabreen inay dowladnimadooda iyo sharciyadooda iyo jiritaankooda difacdaan haddana shaksiyaad reer galmudug ah oo lunsan ama de sida ay u dhaqmayaan waxaad arkaysaa inay ku taageerayeen ama ay dhahayeen xaggay tahay saasay tahay iyagoo ceebta iyo been abuurka iyo waxaan jirin sheegaya dadka siyaasiyiinta qaarkood siyaasiyiintu sharaf lay u badan yihiin dowladnimadana waa difaaceen galmudug waana garab istaageen waxaan leenahay kuwa saa u fakeraya waa la sheego waa laga hadlay waxaa la yidhi kuwa maalina dee maalinta anugu gaariga saarana waa fiican yahay markaan saarayna waa xun yahay soomaalina kusoo barana galmudugna usi daranta
marka kuwa shakhsiyaadka ahaa aan waxaan rabaa inaan idhaahdo annagana dhaliila na been abuura been naga sheega waa idiin furanta waa siyaasada iskale waxyaabaha qaarkood laakiin nooca aad tihiin hadda waa laydin bartay dadka haysii baranina muxuu yahay nooca aad tihiin dowladnimada iyo sharciyadda iyo wadajirka galmudug difaacda qof qaldanna xumaanaad wadato iyo xil aad raadinayso iyo si xun u fakarayso ha ku saacidin anuu galmudug mali anaa dad nala dirsan tahay haddaad maarata na necab tahay waa ku soo dhaweynaynaa annaga ogolma dhaniin masaan kuu sheegay laakiin galmudug difaac haddaad damiir leedahay haddaad siyaasi tahay haddaad mustaqbal leedahay annagu galmudug berri baan ka tegaynaa waa dhimanaynaa waa nala dooro weynayaa waa iska daynaynaa inta baad noo furanta adigu doorasho umow dadkaagana waxa aad samaynayso wax ay berri kugu xasuustaan oo doorasho kuwaan karta noqo la imow waa runteeda walaashay senator jawaahir kursigay weysay senator ahayd senatornimo sharaxneed gabadhaas marba hadeertaan inaan warkeeda dhegeysta insha allah biidnillahi kariim waxaan leeyahay galmudug gacnaha isqabsada qorqor ninkii nacbiye ninkii jecelba qorqor ama waa taga ama waa dhimana ama waqtiga doorashada ah ayaaba dhammaanaysaba laakiin adinku waxaa laga rabaa reegalmudug inaa inta gacnaha isqabsatiin nabad gobolka puntland ma ogola nabadooda in la qaqashaado si adinku u ogolaatay in nabadiina la qaqashaado nabadoo muhiim waaye ani qorqorna aabahay ma dhalin sheekh maxamed shaakir iyo qorqor sheekh maxamed shaakir abay xiga waani laakiin walaa idin sheega nabadu waa shay qaali ah nabadu waa shay qaali ah muhiim ma ahan inaad nabadda aad maxayd lagu cayaaro waxa fiican ma ahan wax fiican ma ahan fahanti nabadu waa shay qaali nabad ama jeclaa oo magaciisa ama waa dhimana ama waa shay xilka aweyha waa ka tagaa laakiin adiga nabadaada ha iskaga cayaari muhiim taasaa ah mideeda kale sheekh maxamed shaakir maxamed sheeg walaalkayo goboladan waa gobolada u dhalatay ka joojiya dhibaatada iyo dad qaxiska iyo xabadda iyo balaayada ilaahay ka cabso nin wadaadaha tahay in ilaahay laga cabso wax muhiima waay dhalinyaradan meeshaa nooga dhamayne taasaa iga dardaaran anag insha allah dhammaanteen weliga gobonimo adan leeyahay